Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan saaxiibada ku xiran channelka soo dhawaada. Waa qaybtii 11aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. Wiilkii yaraa intaa kadib maxaa xiga ayuu ku yiri xaakimkii ayaa ku yiri jacaylka Ilaahay. Xaakimkii waxaad ogaataa jacaylka Ilaahay. Wiilkii yaraa maxaan sameeyaa ayuu ku yiri xaakimkii waana dadka u jeclaata Ilaahay daraadii. Markaad ruux ku leedahay Ilaahay daraadii baan ku jeclahay, alla maxaa ka wanaagsan weedhaas. Ilaahay dadka isaga daraadii isku jeclaada wuxuu u ballan qaaday isaguna inuu jeclaanayo. Waxaa laga wariyay Abu Idris al-Qawlani waxaan soo galay masaajidka Dimashq. Waa wiil dhalinyaro oo fanax leh, waaba dadkii oo isku khilaafsan wiilka yar wixii ay ka wariyeen. Dadkii waan weydiiyay oo waxaan idhi kan waa kuma. Waxay ii sheegeen inuu yahay Mucaad ibn Jamal. Maalintii labaad duhurkii markay ahayd waxaan arkay isagoo iga soo horeeyay masaajidka. Waxaan arkay isagoo tukanaya. Waan sugay ilaa intii uu salaadiisa dhammaysanayay. Kadib waan u imid, waan salaamay. Kadibna waxaan idhi wallaahi waan ku jecelahay. Wuxuu yidhi ma wallaahi ba? Waxaan idhi wallaahi. Wuxuu soo qabtay go'ayga darafkiisa igu soo jiiday. Kadibna igu yidhi bishaarayso. Waxaan maqlay rasuulka Ilaahay oo leh Ilaahay wuxuu yidhi jacaylkayga wuxuu u waajibay kuwa aniga daraaday isku jeclaanaya, kuwa aniga daraaday u wada fadhiya, kuwa aniga daraaday isku booqanaya, kuwa aniga daraaday isku salaamaya. Marka ruux kale ku yiraahdo cid walba oo kale waan ka jecelahay, amase haweeneyda ninkeeda ku tiraahdo cid kasta oo kale waan ka jecelahay, ama uu ninku xaaskiisa ku yiraahdo sidaas la mid ah, waxay ka dhigan tahay inay Ilaahay iloobeen. Natiijaduna noqoto inuu Ilaahay ka dhex baxo, kadibna ay dhexdooda ka dhacdo kala fogaansho iyo khilaaf. Intaa dabadeed noloshoodu noqoto mid adag oo cadaaba. Maxaa yeelay waxaa waajiba in jacaylka la is jeclaanayo uu noqdo mid Ilaahay daraadii la isku jeclaado. Waxaa daruuri ah in ninku xaaskiisa ku yiraahdo Ilaahay daraadii baan ku jeclahay, haweeneyduna ninkeeda ku tiraahdo Ilaahay daraadii baan ku jeclahay. Ilaahay baa iigu ka deeqay oo i ka siiyay, anigu Ilaahay baan uga mahadcelinayaa nimcada uu i siiyay. Kadibna xaakimkii ayaa daymooday wiilkii oo ku yiri wiilka yarow, kaasi waa jacaylka dhabta. Wiilkii yaraa ayaa fiiriyay xaakimka oo ku yiri anigu kumaba odhan Ilaahay daraadii baan ku jeclahay. Xaakimkii ayaa qoslay oo ku yiri anigu Ilaahay daraadii baan ku jeclahay. Halkaasoo uu wiilkii yaraa dareemay jacayl dhab ah. Wuxuu dareemay jacayl farxad leh, wuxuu dareemay nabadgelyo gudaha iyo dibaddaba ah. Wuxuu dareemay jacaylkii dhabta ahaa. Kadibna xaakimkii ayuu eegay oo uu ku yiri inkasta oo aan kuu mahadceliyo, ma awoodo inaan ka abaal celiyo macluumaadka aad ii bartay. Wuxuu yidhi xaakimkii arrinta Ilaahay ugu mahadnaq, maxaa yeelay Ilaahay ayaa aniga sabab iigu ka soo dhigay, taasoo ku gaarsiinaysa dariiqa guusha. Dhabtiina waa dariiqii Ilaahay ku gaarsiiyay ee kugu xidhay, adiguna waad bilowday dariiqii. Wiilka yarow xusuuso in tallaabada ugu horreysa ay tahay xidhiidhka Ilaahay. Wiilkii yaraa ayaa weydiiyay waxaan bartay saamaxaad macnaheeda, waxa kale oo aan bartay jacaylka Ilaahay. Wiilkii yaraa ayaa yiri taasna maxaa ku xiga? Xaakimkii ayaa ku yiri wax bixinta. Wax bixi adiga oo aan shuruud ku xirayn, ana oran anigu hebel iyo hebel baan siiyay, aniga qofna waxba ima siiyo. Ogow markasta oo aad wax bixiso Ilaahayna wuu ku qaabilayaa. Haddii aad cabato qaabilaada Ilaahay baad waayeysaa, Ilaahay iyagana isaga ayaa siinaya. Sidaa awgeed adiguna dareemaysid macaanka bixintu ay leedahay. Tanina waxay ka mid tahay ku xidhnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ah inaad Ilaahay daraadii wax u bixiso oo aanad dadka ha ku arkaan u bixin, oo aad ogaato in Ilaahay adiga ku siinayo meel uu wax kaa siiyo. Taas macnaheeduna waxay tahay in Ilaahay kaa dhigayo mid deeqsi ah,
xusuusnaaw inuu Ilaahay ku siiyo sifo ka mid ah sifooyinka ka wanaagsan oo ah in Ilaahay jecel yahay dadka wax bixiya ee muxsiniinta ah. Marka iminka waxaan ogaanay arrimo badan oo ah aasaaska ku xirnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wiilkii yaraa markaa wuu eegay xaakimkii wuxuuna ku yidhi, hadalkani wuu fiican yahay, waxaanan dareemayaa macaankiisa, waxaana iminka dareemay inaan ku taaganahay dariiqii guusha. Xaakimkii isaga oo dhoola cadeynaya ayuu wiilkii yarkaa gacantiisa garabkiisa saaray oo ku yidhi, laakiin weli maynan dhammayn. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, anigu iminka waxaan ahay heer sare oo maxaa ii hadhay markaa waxaas oo dhan sameeyo? Xaakimkii ayaa yidhi, filasho wacan ayaa ku hartay. Xaakimkii ayaa wiilkii yaraa fiiriyay, wuxuuna arkay wiilka yar indhihiisa oo filasho wacan ka muuqato. Kadibna wuxuu ku yidhi, wiilyahow, mu'minnimadaadu ma noqonayso mid dhammaystiran ilaa aad ka noqoto mid rajeeya oo fisha wax fiican, oo ah inaad aaminto inuu Ilaahay khayr ku siin doono. Maxaa yeelay Ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday inuu ruuxa camalkiisa fiican sameeya aanu ka luminin ajirkiisa. Marka adigu aad ficilka samayso, sababtiisana la timaado, Ilaahayna talada saarato, adiga oo adeecaya Ilaahay, jeclaato Ilaahay, camalka u khaalis yeesho, oo aad wixii Ilaahay aad kula ballantay oofiso, intaa oo dhan kadib ma u malaynaysaa inuu Ilaahay ku hoojinayo? Wuxuu yidhi, maya, bal waxaan aaminsanahay inuu yaqiin siinayo. Ninkii yaqiintani waa tii inoogu dardaarmay rasuulkeena, taasoo ah in marka aad ducaysanayso aad ducaysato adiga oo yaqiinsan inuu Ilaahay kaa aqbalayo. Intaa maxaa ku xiga? ayuu wiilkii yaraa weydiiyey. Ducada iyo dikriga. Xaakimkii, wiilkaygiiyow, inta aad adduunyada joogto Ilaahay bari. Baryadu waa cibaadooyinka ugu fadliga badan leh ee aad Ilaahay ugu dhowaanayso. Taasna Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inooga warramay in ducadu cibaado tahay, sida laga wariyay Nimcaan bin Bashiir oo Nabiga ka wariyay inuu yidhi, ducadu waa cibaado. Sidoo kale dikriga waa saadka mu'minku uu Ilaahay ku gaarayo. Dikriga ugu fadliga badan Ilaahay agtiisuna waa laa ilaaha illa Allah. Kelmaddan joogtee waqti kasta, sidoo kalena joogtee alxamdulillaah oo dheh waqtiga dhibaatada iyo waqtiga khayrkaba. Markasta oo shay ku asiibo waxaad tidhaahdaa alxamdulillaah, had iyo jeer dheh waad faa'iidi doontaaye. Haddii ay jirto arrin halis ah, kadibna aad tidhaahdo alxamdulillaah, khatarta Ilaahay baa kaa badbaadinaya. Haddii aad Ilaahay aad ka baqdana, Ilaahay faraj buu kuu furayaa, meel aanad ka filayna wuu kaa arsaaqayaa. Inta adduunyada joogtana waa inaad tidhaahdaa laa ilaaha illa Allah iyo alxamdulillaah. Markasta oo aad waqti hesho, waxaa waajiba inaad dikriga Ilaahay, shukrigiisa iyo ammaantiisa qalbigaaga ka buuxiso, oo xiriirka adiga iyo Ilaahay idin dhexeeya noqdo mid joogto ah. Wiilkii yaraa, ma intaas ayay ku dhammaatay? Xaakimkii, maya, intaa waa qayb yar oo ka mid ah wixii Ilaahay ina siiyey. Waxaa jira arrimo badan aan gadaal ka baran doono intaan dariiqa guusha ku taagannahay, laakiin tani waa aasaaskii ama hal abuurkii guusha, taas oo ah ku xirnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wiilkii yaraa, maxay tahay aasaaska labaad? Ninkii ayaa ku jawaabay, waa akhlaaqda. Intaa inoo joogto qaybtii 11aad. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaa hore inoola joogtaan la wadaag saaxiibadaada. Mahadsanidin.